to launch a wholly unjustified and brutal invasion of of Ukraine. Iraq, anyway. madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush ayaa si qaldan ku tilmaamay duulaankii lagu qaaday dalka Ciraaq mid arxan dara ah oo aan qiil loo haynin ka hor inta uusan isa saxin oo uu sheegay in uu ula jeeday duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. Bush ayaa hadalkan ku sheegay khudbad uu ka jeediyay munaasabad ka dhacday Dallas Arbacadii xilli uu dhaliilayay nidaamka siyaasadeed ee Ruushka. Natiijada waa maqnaanshaha hubinta iyo dheelitirka Ruushka iyo go'aanka hal nin oo ah inuu bilaabo duulaan aan cudurdaar lahayn oo aan naxariis lahayn oo Ciraaq. Bush ayaa yiri ka hor inta uusan isa saxin oo madaxa ruuxin waxaan ula jeedaa Ukraine waxa uu si kaftan ah u eedeeyay qaladka dhacay in ay sabab u tahay da'diisa markaasoo ay daawadayaasha qosol la dhaceen hadalka si dhaqso ah ayuu u faafay oo uu u qabsaday baraha bulshada sanadkii 2003 markii uu Bush uu ahaa madaxweynaha Mareykanka wuxuu horseeday duulaankii Ciraaq oo loo adeegsaday hubka wax bugumaada ee aan wiligeed hore loo isticmaalin colaad daba dheeraatay ayaa waxa ku dhintay 100,000 oo qof iyadoo tiro intaas ka badan ay ku barakaceen hadalada Bush ayaa si degdeg ah ugu faafay baraha bulshada isaga oo ku ururiyay in ka badan 3 milyan oo aragtiyood oo Twitter ah oo kaliya kadib markii muuqaalkan uu soo bandhigay wariyaha Dallas News madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa sidoo kale la barbardhigay hogaamiyaha Ukraine Volodymyr Zelensky iyo hogaamiyihii dagaalka ee Britain Winston Churchill isagoo dhanka kale cambaareeyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin weerarkii uu ku qaaday Ukraine bishii Febraayo la taliyaha madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in wadanka uusan aqbali doonin xabad joojin ilaa dhammaan ciidamada Ruushka ay ka baxaan hana siin xabad joojin tani waa wax aan suurtagal ahayn haddii aan guud ahaan ciidamada Ruushka laga bixin Mikhailo Podolyak ayaa ku lug lahaa dhowr wareeg oo wada hadal oo lala yeeshay Ruushka ayaa ku soo qoray Twitterka isagoo tixraacaya heshiiskii nabadeed ee 2015 ee bariga Ukraine oo ay garwadeen ka ahaayeen Faransiiska iyo Jarmalka laguna saxiixay caasimadda Belarusia ee Minsk Podolyak wuxuu qoray Ukraine ma xiiseynayso Minsk cusub iyo dib u soo cusboonaysiin dagaal dhowr sano gudahood dhowr mas'uul oo Ukraine ah ayaa dhawaan soo saaray bayaano la mid ah bayaanada Podolyak ma uusan cayimin waxa ka dhigan ka bixista wadarta waxa uu inta ku daray in ilaa Ruushku diyaar u yahay in uu si buuxda u xoreeyo dhulalka la haysto kooxdeena wadaxaajoodka waa hub cunaqabateen iyo lacag askarigii ugu horeeyay ee Ruush ah oo loo haysto dambiye dagaal oo ka dhacay Ukraine ayaa weydiistay cafis maxkamad ku taal Kiev isagoo si faahfaahsan ugu waramay sida uu u dilay qof rayid ah oo goor hore intii lagu jiro weerarkii Moscow waan ogahay inaadan awoodin inaad i cafiso laakiin si kastaba ha ahaatee waxaan ku weydiisanayaa cafis 22 jir Ruush ah oo lagu magacaabo Vadim Shishimarin ayaa ka sheegay maxkamadda isagoo ka hadlayay xaasil 62 sano jir ah oo rayid ahayd oo uu qirtay inuu dilay maalmihii ugu horeeyay ee weerarka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in haddii la doonayo in la dhageysto codsiga qaramada midoobay ee ah in la furo marinka dekedaha badda madow ee Ukraine in sidoo kale la tixgeliyo ka qaadista cunaqabateynta ka dhanka ah Ruushka sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Interfax Ukraine oo kamid ah dalalka ugu wax soo saarka badan dhanka badarka ayaa inta badan badeecadeeda ka dhoofin jirtay dekedeeda balse tani iyo markii uu Ruushka ciidamo u diray dalka Ukraine waxa ay ku qasbanaadeen inay wax ka dhoofiyaan tareen ama marsooyinkeeda yaryar ee webiga Danube madaxa cunada ee qaramada midoobay David Beasley ayaa codsi u diray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin isagoo yiri haddii aad leedahay wax qalbi ah gabi ahaanba fadlan fur dekedahan barnaamijka cunada adduunka ee Beasley waxa ay qoodisaa ilaa 125 milyan oo qof waxaana ay boqolkiiba 50 ka soo iibsataa hadhuurkeeda Ukraine to launch a wholly unjustified and brutal invasion of of Ukraine. Iraq, anyway.